waxaan u aragnaa inuu yahay hadal soo dhoweyn mudan dhiirigelinayana saamilayda siyaasadda dhiirigelinaya maadaama ra-iisul wasaaraha uu sheegay in oo doorashada xilligeedii lagu qabanayo taladana ay dhexda u taalo dadka siyaasadda Soomaaliya saamilayda ka stakeholders waxaan dhahaan waxa kaloo aad muhiim u ah in garowshiyada iyo fahamka ku aadan inay doorashadu lafdhabar u tahay xasiloonida iyo ammaanka dalka mudnaantana iyada ay ka leedahay wax kastoo idil marka ilaa haddeertaan hadalka ra-iisul wasaaraha annaga waan dhiirigelinayaa waana soo dhaweynaynaa waxaan rajaynaynaa in ficil loo turjumo oo hadal dhaafo marka maxaad ka fahantay nooca doorasho ee uu ra-iisul wasaaraha sheegayo waxaan ka fahmay doorasho in laga wada hadlayo oo dadka saamilayda siyaasadda ku wada jiro o dhan ay ka wada hadli doonaan oo miiska hadalka la isugu imaanayo oo laga talagelinayo marka qaabka iyo nooca ay noqon karto doorashada waxaa go-aankeeda markaa yeelanaya dadka doorashada ay qusayso ayagoo matalaya shacabka Soomaaliyeed wakiil uga ah matalaada ay ku matalayaan go-aankaas ayaana aan rajaynaynaa in dowladda garashiyada ay ka bixisay in la wada hadlo oo masiirka dalka waxyaalaha ah ee doorashada kow ku tahay laga wada hadlo inay garashiyo bixiso arrintaas annaga aad iyo aad ay muhiim noogu tahay marka ka mucaarad ahaan hadda welwelkii ma idinka baxay ee ahaa inaysan doorasho dhacaynin welwelka ficil ku bixi karaa ilaa hadda waxaan haynaa waa qowl waxaan fiirinaynaa annaga oon daba taagannahay in qowlkaas loo bedelo ficil loo bedelo oo tilaabta ugu horeysa oo la qaadana in geliyo iyo mid dastuur iyo mid doorasho waxay ka wada hadleen ma jirto dowladda iyo xisbiyada mucaaradka ma wada hadlaan ma furna wax marka wada hadala dadka stakeholderska iyo dowladda kama dhexeeyo dowladda keligeed unbaa wada hadla ama guddoonkeeda baarlamaanka ama laanteeda fulinta iyo laanteeda sharci dejinta keliya unbaa wada hadla waxaa muddaxileed ka dhammaanayana oo mandatekooda lagu murunsan yaho waktigii ka dhammaadayna waa ayaga marka ayagoo mandatekoodii ayaga ka dhammaaday oo muddaxileedkii sharciga ahayd ee qaanuuniga ahayd ee dastuuriga ay ka dhammaaday inay keligood qol isku xiraan dhahaan ayatiinkii annagaa gaarayna midda annaga aan diidanayn waa taas dowladda guddi baarlamaan oo arrimahan doorashada u xil saaran ayay samaysay xukuumaddana hadda sidan ayay leedahay marka ficil markaad leedahay maxaad ula jeedaa ficil waxaan doonayaa in la garowsado guddigaas hawsha oo ku maqnaa inaysan howl haddeertaan waaqaca aysan ahayn oo guddiga haddaad warsato oo dhahdo maxaad ku maqan tihiin waxay ku leeyihiin doorasho qof iyo cod aan ku maqannahay doorasho qof iyo coda aad iyo aad ay dadka Soomaaliyeed u jecel yihiin annagana aan u rabnaa inay muwaadinka Soomaaliyeed xaq helo oo isaga codeeyo laakiin waa shaqo aan la soo qabanin marka waxay noqotay gabaad lagu raadinayo muddo kororsi waxaana taas daliil u ah guddiga doorashada ammaanna gacan kuma hayo meel kuma oga dhaqaalana meel kuma oga heshiis siyaasadeed oo dadkii siyaasadda isku hayay heshiis ay yihiinna ma oga haddaad warsatana waxay ku leeyihiin diyaara nahay maxaa inii diyaara haddaad dhahdana wax u diyaara ma jiraan marka keliya inay marsiyo laga dhigto la yidhaahdo waxaa la qabanayaa doorasho qof iyo coda oon dhaqaalaheedii miisaaniyad dowladda lagu darin oo amnigeedii aan laga shaqaynin oo heshiiskii siyaasadeeda ku dhici lahayd laga shaqaynin oo farsamadii ku dhici lahayd aan laga shaqaynin oo dadkii ay khusaysay aan laga talagelin yaa la rabaa in lala soo shir tago oo la yidhaahdo si doorashadaas loo qabto wakti dheeraad ah oo sanooyin iyo bilaal loo Soomaaliyeed aan matalno xisbiyadii siyaasadda diiwaan gashana aan nahay marka cidda dadka talada dhexda soo dhigaysa oo dadka kale ku marti qaadaysa ka talagelinaysa waa dowladda muqdisho journal kala soo warar sugan oo xaqiiqo ah website-ka Facebook-ga YouTube-ka Twitter-ka muqdisho journal TV